Computerku sidiisaba wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo muhiim ah oo kala ah hardware iyo software. Hardware-ku waa inta dahaaran amba qoloftan sare iyo system-kan samaysan weeyaan ee la arki karayo lana taaban karayo. Software-kuna waa isla system-ka dahaaran amba system-kan xajmiga leh isaga system-ka ku dhex jira ee uu ku shaqeynayo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيان أكاديمية أقوم كافي أونلاين إديوكيشن waxay ku soo kordhisay course ku baran doonto computerka basics-kiisa ama barbilowgiisa. Course-kan intuu socdo waxaad ku baran doontaa inta uu kala qaybsamo computerku haddii ay tahay hardware-ki iyo software-ki ee computerku ka koobnaa. System-ka computerka ee basics-kiisa lagaga soo bilaabi doono iyo sidoo kale hadday tahay wax ka bedelista iyo wax ku soo kordhinta la xidhiidha computerka setting-kiisa. sidoo kale inta course-kan aynu ku guda jirno basics of computer waxaynu ku baran doonaa saddexda application ee ugu caasan MS-ka amba Microsoft-ga, Microsoft Package-ka amba Microsoft Office-ka. kolba waa magacii aad u taqaanay saddexda application ee ugu caasan kuwaas oo loo kala yaqaano Microsoft Word, Microsoft Excel iyo Microsoft PowerPoint. saddexdan application oo mid kastaba shaqo gooniya amba function gooniya u qabto. Microsoft Word waa application-ka loo isticmaalo in documents-ka amba qoraalada lagu qoro hadday tahay meel aad xafiis kaga shaqeynayso iyo hadday tahay mid aad personal u qoranayso in dhammaan documents-ka inta badan computerada Windows-ka loo isticmaalo in lagu qoro inuu yahay shayga loo yaqaano uguna wanaagsan uu yahay Microsoft Word. Excel sidoo kale waa barnaamijka lagu sameeyo xisaabaadka amba qaybaha kala duwan ee xisaabaadka. sidoo kale application-ka loo yaqaano PowerPoint waa shayga lagu sameeyo presentations-ka amba slides-ka inaad soo jeediso nashqadayno iyo noocyo kala duwan oo leh oo animations. haddaba maxaad sugaysaa maanta oo ku soo biir kana mid noqo kumanaanka arday ee online wax kaga barta akademiyada aqoon kaafi online education. course-kani inta uu socdana waxay idin soo gudbin doonaa amba idin la socodsiin doonaa aniga oo Axmed Cabdi Maxamed ah hadduu Allaha awood leh inoo ogolaado.